kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka ee janhalkeena libaxyada qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraakiil guutooda waa Yuusuf Raage oo lacag u geynaya ciidanka ku maqan dalka Eritrea oo cabasho fara badan ay ka soo yeertay iyadoo haatan laga muujiyay walaac horle xogii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin ciidankaasi ku maqan dalka Eritrea iyo safarka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale waxaa qayb ka noqon doona saaxiibayaal qodobada aad kaga bogan doontaan barnaamijkeena falanqaynta wararka Faad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore hay'adda nabad iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo Muqdisho ku bahdilay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa Muqdisho waxa uu kaga qayb galayaa shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo la qorsheenayo in saacadaha soo aadan uu ka furmo caasimadda haddaba saaxiibayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xogo sir oo ku saabsan qodobkaasi iyadoo Faad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore hay'adda nabad iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed uu baadil xoog leh u geystay madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland waxaa kale oo qayb ka noqon doona saaxiibayaal qodobada aan ku eegi doono barnaamijkeena falanqaynta wararka bangiga adduunka oo soo saaray warbixin aysan ku farxin dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo beesha caalamka haatan cadaadis xoogan ay saarayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhaliilo fara badan loo tiirinayo maamulkiisa waxaa sii badanaya xubnaha siyaasiyiinta ee dhaleeceynta u jeedinaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka soo horjeestay dadaalada lagula jiro la dagaalanka al-shabaab iyadoo dadka deegaanku ay sabaabulay ciidanka dawladda oo isgarab siinaya ee dagaalo xooggan kula jiraan ururkaasi haddaba siyaasiyiin ka hadlay arrinkaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa dhammaan qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa qayb ka noqon doona saaxiibayaal barnaamijkeena falanqaynta wararka ugu horreyn idin xasuusiyo inaad subscribe saarataan channelkeena YouTube ee aad mar waliba oo la socotaan muuqaalada aan ku baahina baraheena bulshada sidoo kale like saar muuqaalkan saaxiibadada la sii wadaag aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qoran tahay waxaadna ka soo hadli kartaa dhammaan qodobada barnaamijkeena falanqaynta wararka waagaag saaxiibayaal faahfaahinta ayaan u gudagalayaa haddii aan ku horreeyo qodobkeena koowaad taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraakiil guutooda waa Yuusuf Raage ayaa lacag waxa uu u geynayaa ciidanka ku maqan dalka Eritrea oo walaac fara badan haatan laga muujinayo xaaladooda sidoo kale waxaa soo baxaya warar cusub oo ku aadan ciidamada ku maqan halkaasi Saraakiil guutooda waa Yuusuf Raage ayaa waxaa la tilmaamay inuu aad uga xumaaday xaaladaha haatan ay ku sugan yihiin ciidanka ku maqan dalka Eritrea ayna ka gaabisay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxaana la tilmaamay in lacag fara badan haatan uu qorsheenayo inuu ugu geeyo halkaasi si ay uga duwanaato xaaladahooda sida haatan ay ku sugan yihiin ciidanka ku maqan dalka Eritrea ayaa waxaa soo baxaya warar cusub oo sheegaya inay wajahayaan xaalado adag dhanka kalena dowladda Eritrea ee ka qayb gelisay dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana la tilmaamay in arrimahaasi uu soo seexay markii uu tagay magaalada Casmara ee dalkaasi iyadoo uu kulan la yeeshay madaxda sare ee dowladda Eritrea Itoobiya ayaa waxaa dib uga bilowday dagaalkii u dhaxeeyay ciidanka dowladda Itoobiya iyo sidoo kale jabhadda Tigreega oo ka soo horjeeda maamulka Abiy Ahmed waxaana la tilmaamay in ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka halkaasi ugu sugnaa qaarkood dowladda Eritrea ay ka qayb gelisay dagaalkaasi dhanka kale markii laga soo tago arrinkaasi xaalado adag oo caafimaad iyo mid maaliyadeed ay wajahayaan ciidamada ku maqan dalkaasi Eritrea taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraakiil guutooda waa Yuusuf Raage arrinkaasi ka duulaya ayaa waxa uu aruuriyay lacag fara badan oo ciidankaasi uu gaarsiinayo si uu sare ugu soo qaado xaaladahooda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu ku jiray ololihiisa siyaasadeed waxa uu tilmaamayay inuu ciidankaasi dib ugu soo celin doono magaalada Muqdisho uuna wax ka bedeli doono xaaladaha ay ku sugan yihiin balse dhammaan arrimahaasi waxa ay noqdeen kuwa been abuur ah oo ku beer la xawsanaya shacabka Soomaaliyeed Xasan Sheekh ayaana haatan si dhab uga gaabiyay ciidamada ku maqan dalkaasi oo wali aan lagu soo celin magaalada Muqdisho iyadoo wararku ay tilmaamayaan in goor sii horeysay ay gabagabeysteen tababarkooda waxaa la tilmaamay in ciidankaasi wali ay ugu sugan yihiin dalka Eritrea sababa dhaqaale dowladda federaalka ayaana xoogga saarin dhaqaalihii lagu bixin lahaa ciidankaasi si ay ugu soo noqdaan dalkooda ayna uga qayb qaataan la dagaalanka al-shabaab iyo inay difaacaan qarankooda ciidamadan oo kor u dhaafaya ilaa 5,000 ayaa qorshaha ugu weyn ee laga lahaa waxa uu ahaa la dagaalanka al-shabaab iyo inay gacanta ku dhigaan xuduudaha dalka baahida ugu weyn ee loo qabo ciidankaasi ayaana haatan taagan maadaama dhammaan gobolada dalka ay ka soconayaan dagaalo looga soo horjeeda al-shabaab dhanka kalena al-shabaab ay mar ka gudbeen xuduudka Soomaaliya ee la leedahay dalka Itoobiya iyadoo ciidamada Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan markii la eego tiro ahaan ay aad u yar yihiin sidoo kalena
uu jiro gaabis xooggan oo ay muujisay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud. Ciidamada qalabka sida dhammaan waxa ay dareemayaan in maamulka Xasan Sheekh Maxamuud uu ka gaabiyay duruufaha ciidanka. Markii la eego madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxay aad uga kala duwan yihiin qorshaha ciidamada. Farmaajo iyadoo xoogga uu saarayay dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed mar walibana waxa uu dabooli jiray daruufahooda. Haatana Xasan Sheekh Maxamuud waxa xooga iskama saaraya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo iyagu ah kuwa mar waliba u taagan difaaca qaranka Soomaaliyeed. Waa saaxiibayaal qaybihii dhexe ayaan ku guda jirnaa markana qodobadeena kale haddii aan si ambaqaadno. Agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxa magaalada Muqdisho uu ku bahdilay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo soo gaaray caasimadda si uu uga qayb galo shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo la filayo in uu qabsoomo saacadaha soo aadan. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa aad aragti ahaan uga duwan hogaamiyaha maamulka Jubbaland waxaana hore ugu tilmaamay inuu yahay kansar siyaasadeed oo ku jira Soomaaliya. Sababaha ugu weyn oo arrinkaasi ugu tilmaamay ayaana ahayd in Axmed Madoobe uu jaajuus u yahay dowladda shisheeye oo ay ka mid tahay dowladda Kenya. Dhanka kalena mar waliba uu carqaladeeyo dhammaan nidaamyadii dowladeed ee dalka soo maray marnabana uusan ogolayn inay sare u kacdo Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa guud ahaan waxaa soconaya dadaalo siyaasadeed oo ku aadan sidii loogu tuuri lahaa maamulka Jubbaland waxaana kaalin weyn ka geysanaya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo isagu aragti ahaan aad uga soo horjeeda hogaamiyaha maamulka Jubbaland. Safarka haatan uu ku yimaaday magaalada Muqdisho Axmed Madoobe ayaa la tilmaamay inay sababi karto in siyaasiyiinta ka soo horjeeda hoggaanka maamulkaasi ay u dabamaraan magaalada Kismaayo. Waxaana jira muddo kororsi hal sano oo Axmed Madoobe uu sameeyay kaasi oo ah mid sharci darro ah. Siyaasiyiintan ayaana ka hor yimid arrinkaasi. wixii xoog ku soo kordhay saaxiibayaal arrinkaasi waxaad kaga bogan doontaan muuqaaladeena soo aadan markana qodobadeena kale haddii aan si ambaqaadno. Bangiga Adduunka ayaa waxa uu soo saaray war aysan ku farxin dowladda federaalka iyadoo dhaliilo fara badan beesha caalamka ay u jeedinayaan maamulka cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud. Saboolnimada dadka faqriga ah ee Soomaaliya ayaa sii korortay iyadoo weerar argagixiso ay halis geliyeen dowladda isla markaana ay xadidayaan awoodda ay ku fulin karto siyaasado horumarin oo wax ku ool ah. Waxaa sidaasi shaacisay Bangiga Adduunka iyadoo maamulka Xasan Sheekh Maxamuud arrinkaasi ay ku dhaliileen. War-saxaafadeed uu soo saaray Bangiga Adduunka ayuu ku sheegay in cuntadii ay heli jireen qoysaska ay saameeyeen weerarada argagixiso ee hoos u dhacay 33%. Taasi waxay dhalisay ay yiraahdeen in heerka saboolnimada ee dadka faqriga ah ay kordhaan. Hoos u dhaca cunnada ay heli jireen qoysaska waxa ugu wacan iyadoo ay yaraadeen dadkii qoysaska u xoogsan jiray kadib markii ay saameeyeen weerar Al-Shabaab ay ka fulinayaan guud ahaan dalka. Halista nabad waa tallaabada koowaad ee aas-aasiga u ah in sare loo qaado xaaladaha fayaqabka. Taasi waxay sidoo kale u faa'iideyn doontaa ayaa la yiri Soomaaliya oo idil. Soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan Afrika waxayna weli wajahaysaa caqabado ka dhigaya dal aad u nugul ay yiraahdeen Bangiga Adduunka oo soo saaray warbixin ku saabsan war-saxaafadeedkooda. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay inay sare u sii kacayso xasilooni darida dalka waxayna warbixin sanadeed ay soo saartay ku sheegtay inay kordheen weerarada ay geysanayaan Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaana arrinkaasi lagu dhaliilay maamulka Xasan Sheekh Maxamuud oo tan iyo markii uu yimid xukunka ay bateen weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan dalka taasi oo sababtay inuu hoos u dhacay dadaaladii ay sameyn jireen hay'adaha amniga sidoo kalena ay yaraatay kaadinta xogta dowladda federaalka. Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 1.5 oo qofood ay khasaare ka soo gaareen weerarada argagixisada ee Al-Shabaab ay ka fuliyeen dalka. Muddada kooban uu dalka hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay tilmaameen inay ka dhaceen weeraro xooggan oo Al-Shabaab ay geysteen dhanka kalena uu hoos u dhacay amniga guud ee dalka taasi oo loo sababeeyay hay'adaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya inay ka gaabiyeen shaqooyinkii loo igmaday. Xilligii Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaa jiray cadaadis xooggan oo ku aadan hay'adaha amniga taasi oo mar waliba xoogga lagu saari jiray sidii uu ku sugi lahaayeen amniga guud ee Soomaaliya balse haatan waxaa jira mas'uuliyad darro dhanka amniga taas oo laga sawiran karo sida ay u kordheen weerarada Al-Shabaab oo gobolada iyo caasimadda intaba ay ka wadaan dagaalo ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya. Guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkii falanqaynta wararkeed kala socoteen channelkeena ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waa idinkaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkani anigoo dhanka kale idin xasuusinaya inaad subscribe saarataan channelkeena
sidoo kalena laag saarataan barteena Facebook mar waliba oo la socotaan wararka xaqiiqda ku saleysan in ku baahina baraheena bulshada. sidoo kale laag saar muuqaalkan saaxiibada la sii wadaag aragtidaadana noogu reeb halka commentiga ay ku qorantaa waxaadna ka soo hadli kartaa dhammaan qodobada barnaamijkeena falanqaynta wararka. si gaar ah waxaad uga soo hadli kartaa qodobka ku aadan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka walwalaya xaaladda ay ku sugan yihiin ciidanka Eritrea iyadoo haatan uu diyaarinayo qorshe uu ku gaarsiin lahaa lacago. muuqaalkan kiisa xiga saaxiibayaal inta ku kulmi doona waxaad kaga tagayaa sida ay nabadgelyo.